السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا إنه حيران مeel kasta iyo xilli kastoo joogtaan saacaddu waxa ay sii cagcageynaysaa 11 barqanimo weli waxaan ku jirnaa howlgalkii aan ku kormeeraynay goobaha ganacsiga xaafadda Soomaalidu ee magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika aroornimadii hore ee saakay ayaa security-ga iyo mas'uuliyiinta jaaliyadda Soomaaliyeed oo ugu horeeyo Caamir Sheekh ay bilaabeen howlgal ay ku xaqiijinayaan amniga xaafadda Soomaalida waxaan soo aragnay goobo badan oo ku yaala xaafadda Soomaalida ay ka degan tahay magaalada Johannesburg kuwaasi oo gabi ahaantoodba xirnaa ilaa welina xiran waxaan sidoo kale tagnay goobta lagu waday in uu barnaamijka uu ka bilowdo ilaa iyo haatanna uusan bilaaban dad aad u tareeyar oo markaasi ah dadkii ka soo horjeeday dadka ajaanibta ah ee ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa halkan ku sugnaa cabsi weyn ayaa la qabay maanta dad aad u tiro badan ay halkan ay soo maraan xaafadda Soomaalida iyo goobaha ganacsiga xaafadda Soomaalida ay ku leedahay magaalada Johannesburg balse waxaad moodaa iminka in barnaamijku uusan ahayn kii la filanayay maalmo ka hor oo laga cabsi qabay in uu noqdo barnaamij weyn oo dad badani ay halka isugu soo baxaan mararka qaarna ay dhici karaan rabshado balse haatan ma jiro barnaamij aad u weyn dadku aad bay u tiro yar yihiin waqtigu waa gabagabo waxaa suuragal ah in uusan barnaamijkaasi sidii la filayay uusan u dhicin dadkuna ay aad u tiro yar yihiin haddii ay dadku tiradoodu ay intaan yartaa oo kale ay tahayna waxaa dhici kara in aysan jiraynin saxmad weyn iyo cabsi laga qabo in barnaamijku uu noqdo mid rabshado wata weli waxaa lagu boorinayaa dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda Mayfe in ay taxadar muujiyaan ilaa iyo gilinka dambe ee maanta waxaa lagu wada barnaamijku inuu bilowdo abaara 10 barqanimo ilaa iyo 12kana oo soo gabagaboobo goobtii ay ku sugnaayeen dadka tirada yar ee doonaya inay barnaamijka dhigaan oo aan goobtaasi kula hadalnay waxa ay noo sheegeen in barnaamijkoodu uu yahay barnaamij nabdoon aysan jirin cid ay target gareynayaan aysan jirin goobo ganacsi oo ay doonayaan in ay boobaan balse ay doonayaan in si nabada ay ku maraan jidadka qaar ee xaafadda Mayfe waxay walaac ka muujiyeen dadka Soomaaliyeed ee halkan degan in ay horay meeshan kaga hor yimaadeen isla markaana u diideen inay jidadka qaar ay maraan taasina walaac ayay ka muujiyeen horjoogayaashii markaasi barnaamijka qaban qaabinayay si kastaba ha ahaato barnaamijkani waa uu yasiran yahay dad badani dabcan ma joogaan hadda goobtii la rabay inuu barnaamijka uu ka bilowdo dib ayuu uga dhacay xilligii barnaamijka uu bilaaban lahaa waxaana suuragal ah in xilli kasta uu bilowdo as long dadka ay yar yihiin waxaa mar walba dhici kara in dhibaataduna ay yaraato waxaa la rajaynayaa in aysan dhibaato badan dhicin oo markaasi dadkaasi si nabdoon ee jidadka qaar ay ku maraan sida mas'uuliyiinta iyo ciidamadaba ay qabaan runtii waxaa jira dadaal xooggan iyo fuljignaan ay sameynayaan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda Mayfe maadaama ay u hoggaansameen awaamirtii ka soo baxday ciidamada oo ahayd goobaha ganacsiga in la xiro gabi ahaanna waxaa xiran goobihii ganacsiga mana jirto ilaa iyo haatan dhibaatooyin iyo qulqulatooyin ka dhacay halka barnaamijyada ay ka bilaabanayaan goobaha ganacsiguna si nabdoon ayay u xiran yihiin security-ga ayaa markaasi gaaf wareegaya goobaha ganacsiga iyagoo u sheegaya in ay weli barnaamijyadii aysan bilaabanin xilli walbana ay bilaaban karaan waxayna sidaas oo kale ay gaaf wareegayaan oo ilaa iyo saakay ay gaaf wareegayeen goobaha ganacsiga ayagoo u sheegayay in xaaladda ay dejiyaan dadkuna aysan hal meel isugu imaanin xitaa aysan ku soo bixin markay dadka ay barnaamij dhigayaan waayo dadkani markii ay barnaamijyada dhigayaan haddii aad laskugu soo baxo irdaha ama jidadka waxaa suuragala mararka qaar in ay u geystaan ama hadalla ay weydiiyaan halkaasna ay xasarad iyo isku dhac ka bilowdo aad ayay xaafadda u degan tahay waxaana la rajaynayaa in xaalku sida hadda uu yahay uu sii ahaado wax dhibaatana aysan ka dhicin deegaanka ay Soomaalida degan tahay ee Mayfe balse waxaa jira dad baahinaya dhibaatooyin ka dhan ah dadka ajaanibta ah oo qalqal gelinaya ganacsatada iyo ummadda Soomaaliyeed balse xaaladdu waa ay degan tahay xaqiiqda dhabta ah ka jirta xaafadda Soomaalida xilligani waa intaa wixii ku soo kordhana waxaad kala socon doontaan page-ka aan ku leenahay baraha bulshada